daawada ku soo dhawow barnaamij gaar ah oo ku eegayno fadeexa ka socota xeebta Jasiira iyo xeebta Liido ee magaalada Muqdisho isla markaana isku bedelay goobo loo tumasho tago magaalada Muqdisho oo noqotay xarun u eg magaalooyinka reer galbeedka sida California iyo Paris oo sidoo la sheegay ma ay noqdeen meelaha lagu tunto xeebta Jasiira ayaa noqotay meesha ugu fisqiga iyo fadeexada badan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan geyga Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaallo laga duubay gabdho iyo wiilal xeebta Liido isku qaawiyay isla markaana si la yaqaano meesha isku koraya arrintaas oo dadka muslimka iyo dalalka muslimiinta haddii ay sii socoto ay mucjiso ku noqon doonto inuu Ilaahay cirka ciqaab uga keeno balse daawadayaal intaan u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan halkani waa Galaangal Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka tahay markii kuugu horeysay subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena iyo xogaha aan baahino Galaangal Media waxay idin soo gudbinaysaa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee baraha bulshada iyo sidoo kale waxay Soomaalidu hadal hayso waad ku maasantahay daawashadaada iyo sida aad noogu tixantihiin haddii aad muuqaaladeena iyo muuqaalada kale aad aragtaanba markasta subscribe ta la dhaafin iyo like ta iyo share ta waa ku maasantahay daawashadeena haddana waxaan gudagalaynaa barnaamijka oo faahfaahsan aanu gudagalay barnaamijkayga xeebta Jasiiro ee magaalada Muqdisho ayaa waxay noqotay meeshii ugu fisqiga iyo fasahaadka badan geyga Soomaalida isla markaana isku bedeshay goob ay dadku ku tuntaan dhalinyaraduna isku abaahiyaan isla markaana isku galmoodaan sidoo kalena ay iskaga duubaan muuqaalo si aad anshaxumo u ah aan marnaba ku banaanayn in dadka muslimiinta hortooda la keeno haddaba daawada dhalinyarada tagtay xeebta Jasiira ayaa markay halka gaaraan waxa ay sameeyaan muuqaalo iyo arrin si aad u noqotay mid loola yaabay waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalka koowaad waa kanayna la daawo iyo xeebta Jasiira waxa ka socdoodan ogeyn halkan kaga كل صباح هنا حاله صباح عبده عمار يباش اف 60 38 تارجت جاري معاكم قرن اف 60 38 100 اف لحظة صدني سديد او كرول اهمية او 2004 عاو قلت ما دبك صوت يا تعال سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلهو عيدا يدولك بهنا لا غريجين دول غرير نغا إلالي بدنا يبرغنا هنغو عقابين إلهو وحن كابرينا كوا وحن كسمينا كوركا يا أرلداده إنو سن إلهو ربيو آذنو عقابين أو آذنو قبن دونم تاي قليان أو آن إندها كفير سنينو qof walba oo muslima ama qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu arintani si dhaba uga hortago isla markaana tilaabo waafaqsan sharciga laga qaado maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay magaalada Muqdisho awood ballaaran ku leedahay sidoo kalena ay tahay inay ilaaliso sharciga iyo qaanuunka iyo waliba anshaxa shacabka ay wasaaradda awqaafta iyo diinta ay arintani mas'uuliyad ka saaran tahay isla markaana ay gabtay mas'uuliyadii ay loo igmaday iyo dastuurkii ay ku dhaaratay intaba haddaba arrintan ayaa haddii ay ku sii socoto magaalada Muqdisho iyo xeebta Liido oo sidoo kale ayaduna noqotay goob sidaan oo kale loogu tunto dhalinyaraduna ay iskugu galmoodaan muuqaalaan shaxumaana iskaga duubaan ayaa waxay noqon doontaa mid si aad dadka Soomaaliyeed dhexdooda ugu baahsan Ilaahow Rabbiyo wixii meesha ka dhacana dartood ha noo ciqaabin oo naga ilaali musiibadaada iyo caradaada intaba ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu kuwa sidaan ku sameeyo arladiisa iyo xeebihiisa oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga qabto
kana ka wada koonka korkiisa ummadda soomaaliyeedna magac xumada iyo facsharka u soo jiidaya. haddaba daawade arrintani ayaa waxay tahay kuwii la yaabka lahaa ee la arkay sanadkii 2019 ee maanta sii dhammaanaya. arrintan ayaa haddii ay sii socoto sidoo kale waxay mucjiso iyo musiibo ku tahay dadka Soomaaliyeed, waxaana cirka iyo dhulkaba looga diidaa naxariista Alle iyadoo dadka lagu ibtileeyo abaar, cudurro iyo sidoo kale colaad intaba noqoto mid dadka Soomaaliyeed halkaysay maanta. muuqaaladan iyo kuwo kale oo badan oo naga qarsoonaya ka jira geyga Soomaalida, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa, Boorama, Burco iyo magaalooyin kale sida Garowe, Hargeysa, magaalada Boosaaso oo sidoo kale la sheegay in arrintani ka jirto. meelahaas waxaa jooga culamo Soomaaliyeed oo isku mashquulsanaya ku balse arrimaha bulshada dhexdeeda ka socda aan waxba talaabo ka qaadi karin. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaal kale oo xeebta Jasiire laga duubay isla markaana si aad baraha bulshada u qabsaday, balse waxaan idiin soo gudbin doonaa dadkaasi magacyadooda, gaariga lambarkiisa ay saaran yihiin intaba. waxaad ku soo dhawaataan muuqaalka kale oo aad intaba uga bagan doontaan gaariga ay wateen dadkaasi iyo sidoo kale gabar iyadoo qaawan ka soo baxaysa gaariga daaqadiisa. haddaad muuqaalka soo socdaa si fiican u daawato dhageyso. كل صباح هنا حاله صباح عبده عمار يباش AF 6038 taargada gaariga maxaa ku qoran AF 6038 miya AF 638 oo Corolla ah miya oo 2004 ah عاود قلت ما دبك شوف يا ساعه fadlan daawade waxaan filayaa inaad si aad uga bagatay fadeexooyinka ka socda magaalada Muqdisho iyo hoteelada sida qaaliga lagu degan yahay, iyadoo sidoo kalena magaalada Muqdisho ay xasuus mudan tahay in wiil Soomaaliyeed ugu xiran yahay magaalada Muqdisho gabar Soomaaliyeed oo sidoo kale leh si aad ah ii jeclaaw oo xoog igu jeclaaw xoogna igu guurso aniga ayaa qasab isku ka guursiinaya wiilka oo ku xiran magaalada Muqdisho. isagana barnaamij gaar ah ayaan uga hadli doonaa oo soo socda.
fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka muuqaalkana uu tahay kii kugu horreeyay subscribe marka la saaro oo ku maasan tahay daawashada aad halkan nagala socoteen barnaamijkan ka daawanayseen waa shabakada warbaahinta Galaangal Media